بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله. walaalayaal adduunka meel kastood kaga sugan tihiin waan islaamayaa. salaanta islaamka waa saacad dambe agan magaalada deganahay Gatineau, Ottawa. waa saacadu waa 12 iyo wax yar. waxaan u malaynayaa geeska Afrikana salaadii subax baa laga soo baxay oo shaqadii baa la aadayaa, ambase dadku waxay u soo baxeen noloshoodii caadiga ahayd. marka insha Allah tacaala saacada uu joogaan ku salaamaya kuna sharfaya. waxaan jeclaaday saacada inaan hadlo. waxay ugu wacan laba arrimood daraadeed. waa marka hore wax badan oo ka digay oo Ethiopia ku soo socda ayaa dhacay. dadku markay wax dhacaan bay arkaan, laakiin digniinta hore lama socdaan. marka arintaas baa ay keentay inaan hadlo arrimo aan sii sheegay oo ay ka mid tahay in Ethiopia aynan u socon doonin sida ay wax yihiin, ay isbedeli karaan oo la filayo siinooraya khatar in la galo yaan ka sii digay bahayd. marka arrimahaaba soo imaaratay soo socda. taas baa ay keentay inaan ka hadlo. arinta labaad ee ugu wacan inaan meeshan soo fadhiisto waxa weeye in Soomaalida inaan kelmad kula hadlo. Soomaalida degan gobolkaas loo yaqaano Soomaali galbeed, amba loo yaqaano Soomaali gobolka shanaad ee Ethiopia, amba loo yaqaano Ogaadeniya. anigu hore inagu sheegay magacdu problem iguma hayso, laakiin waa nin basadu u yaqaano. anigu shakhsiyan magacaan jeclahay waa Soomaali galbeed weeyaan. marka axibati dhammaantiin waan salaamay. waxaan jeclahay horta marka hore inaan la hadlo dad aan jeclahay. maxaa yeelay waxa aan adduunka ugu jeclahay anigu wax weeyaan, adduunka oo dhan dadkan ku nool waxaan ugu jeclahay dadka muslimka ah. bini'aadanka wada jeclahay, laakiin waxaan sii jeclahay dadka muslimiinta ah ee ila wadaaga fikradda islaamnimada, in aragtida islaamka ila wadaaga. waxaan dadkaas si gaara u sii jeclahay dadka Soomaalida ah. maxaa yeelay nin Soomaaliyan ahay, dhiigaygu wuxuu qoraa Soomaalinimo. min maskaxda ilaa dhuuxa waxaa iga jira inaan ahay qof Soomaali ah. waxaan si gaara haddana usii jeclahay dalkayga Jamhuuriyadda Djibouti. marka waxaa la dhahdaa intimaa'aad saddexa weeyaan. xadaarad ahaan muslim baan ahay, qowmiyad ahaanna Soomaali baan ahay, wadan ahaanna reer Djibouti baan ahay. marka dadkaas aan jeclahay, dhibaatada ugu weyn ee haysata maanta waxa weeyaan Soomaalida waa mushkilad ayna fahmayn marxaladda ay nool yihiin. marka waxaan jeclahay maanta kelmad qalbigay ka soo baxaysa inaan kula hadlo dadka Soomaalida ee degan meeshaas aan sheegay, Soomaali galbeed amba Ogaadeniya amba gobolka shanaad. horta marka hore waxaan la hadlayaa dadka degan magaalada Diradhabe. walaalayaal, taariikhdu way garanaysaa Diradhabe iyaale. qof taariikhda ka saari kara magaalada Diradhabe iyaale ma jiro. waa in lagu laamo uun taariikhdii markii Ingiriisku dhulka yimid iyo markii uu yimid Faransiisku ee Amxaarku ayna noo iman amba ayna soo weerarayeen, ay qabsanayeen dhulkeena. qofka garanaya taariikhdaas wuxuu ogyahay iyaale Ethiopia. Menelik wuxuu oran jiray waa la ogyahay magaalada Diradhabe. Haile Selassie wuxuu oran jiray waa la ogyahay. ninkii Mengistu Haile Mariamna wuxuu oran jiray waa la ogyahay. wixii keensaday in magaalada Diradhabe sida ay maanta tahay laga dhigana waa la ogyahay. laakiin anagu waxaan qabnaa magaalada Diradhabe waa caasimad weeyaan. caasimadna waxaa ku wada nool dad kala duwan. dadka kala duwan ee ku nool magaalada Diradhabe dhibaato kuma hayso. lahaanshuhuna waa gooni. inay dadku ku wada nool yihiinna waa arrin ilbaxnimo weeyaan. magaalo qabiil quraata uu dego caasimad ma noqoto. magaalo qowmiyad quraata ay degan tahayna caasimad weyn ma noqoto. quruxda ay Diradhabe leedahay waa in la degan yahay dad kala duwan, xagga diinta muslim iyo kristan, xagga cirqiga oromo,
Soomaali, Amxaar, Uraago, Tigree iyo wixii la halmaala oo dhan iyo maaragtay degan. Marka magaalada Diradhabe waa sidaas weeyaan. Dad fara badan baa degan. Marka waxaan jecelahay inaan la hadlo dhalinyarada walaalahaya ubadkayga ah ee magaalada Diradhabe degan. Waxaan jecelahay inaan ku idhaahdo 2 arrimood oo geesinimo leh. Waa arrinta koowaad barbaarta Diradhabe degan isbeddelka laxaad kale ka dhacay gobolka Shanaad ee lagu eriyay dictatorkii Cabdi Iile dadkii horseeday ininka ahaa barbaarta Diradhabe, barbaarta city. Kadibna dulmidiid iyo waxaa soo baxay dadkii kaleeto ee sara kacay ee geesinimadiina ku dayday. Marka waa in arrintaas waa nagu ammaanayaa. Arrinta labaad ee nagu ammaanaya waxa weeye inaad tihiin dad isku xidhan oo dad fara badan oo soo dhexgalay ay kari waayeen inay kala furfuraan. Arrintaana waad ku ammaanan tihiin. Dhammaantiin waa is haysataan. Laakiin waxaan jeclahay inaan idin sheego 4 arrimood oo waanaa waa reer Diradhabe tani. Arrinta koowaad waxa weeye dagaalku maaha maanta hub. Dagaalku waa caqli weeyaan. Dagaalku maanta waa maskax weeyaan. Dagaalku maanta waa siyaasad iyo istaraatiijikal weeyaan. Marka waxaan rabnaa in aan caatifada yarayno oon caqli ka shaqaysiino. Arrinta waa waana gaar oo nasiinaya reer Diradhabe. Dhalinyaradu ayaantii dhaweyd ee taabuudka amba waxan ay Amxaar ku wateen Kiristanka dhagaxa lagu aay maaha sax. In aan dagaal furno jabhado fara badan oo la dagaalantiin Oromo, oo la dagaalantiin Amxaar, oo la dagaalantiin maaragtay dad fara badan oo qolooyin badana guul ma keenayso. Waxay keenaysaa khasaare keenaysaa. Marka sidaa daraadeed dhalinyarada Diradhabe waxaan ku leeyahay maskaxda aad u shaqaysiiya. Arrinta labaad ee inagu weynaya waxa weeye reer Diradhabe dhalinyarada barbaarta iyo wixii kale la socdaba inaad noqotiin dad hogaankooga ka dambeeya. Waa inaad yeelatiin dad baa ini ah aabayaashiin ka dambeeya gaar ahaan ugaaska Mustafa. Taasi waxay inagu qasbi doontaa inaad noqotiin dad mijo iyo madaxa. Mijuhu hadday madax noqdaan waa foolxumo. madaxuna hadduu mijo noqdo waa foolxumo. maadaama ugaaskii uuna dhex fadhiyo oo Mustafa uuna dhex joogo inaad adeecdaan ood ka dambaysaan iyaduna waa muhiim weeye. Arrinta saddexaad waxa weeye magaalada Diradhabe waxaa jooga culimo. Culimadaas waa culimo Soomaaliya in jecel. Culimadaas ma ogolo in la dulmo, laakiin mana ogolo inaad idinku wax dulmtaan. Inaad culimada fataawada aad weydiisaan waa muhiim oo aanad hormarin iyo kana ka faa'iideysta. Arrinta afaraad waxa weeye inaad dagaalka aad galaysaan aad ka dhigtaan dagaal u socda hab maaragtay mutadarrija. Dagaalka maanta loo baahan yahay dib ha u dhigina. Ka bari loo baahan yahayna ha soo dadajinina. Ka sahan dambe loo baahan yahayna warkiisa haba keenina. Ka saakuun in la galo loo baahan yahayna meeshiisa u daaya. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Diradhabe ku nool waxaan idin sheegayaa inaan aad idin jecelahay. waanad ogtihiin inaan jecelahay. jacaylkaas waxaan inila hadlayaa waxa weeye inay la daaliya maaha. waa daalaysiin sidan. waxaad iska baabi'inaysiin waxaad tihiin. waxaad hormaraysiin wax aanan nilii diran. marka had iyo jeer dagaalada aad galaysaan waa inay noqdaan dagaallo aan maaragtay loo baahan yahay inuu maaragtay isbedelo laxaad leh inaynan inagu keenin. marka intaas waxaan jeclahay inaan kula hadlo magaalada Diradhabe Soomaalida degan. intaas waxaan jeclay inaan kula hadlo reer Diradhabe. waxaan iminka u imanayaa walaalayaal arrinta Soomaalida gobolka haysata. waxaad ogtihiin gobolkan isbedel baa ka dhacay.
isbedelka waxaa keenay sidaan inii sheegay dhowr urur oo isku tagay. waxaa jira Soomaalidu halganka ay maanta ku jiraan halgan shalay bilaabmay maaha. Soomaalidu halgankoodu wuxuu ka soo bilaabmay ilaa iyo waqti hore oo ka soo bilaabmaysa kuntumooyinkii, lixdanadii, toddobaatanadii, sideetanadii, sagaashanadii, 2000 ilaa iyo maanta ma kala joogsan halganka ay ku jiraan dadka Soomaalida ee gobolka ku nool. dadka aanan hubka dhigin waxaa ka mid ah oo NLFta wayna soo galeen imika wadankii in badan oo ka mid ah. waxaa ka mid ah dadka halganka ku jiray dhalinyaradan dulmidiid. waxaa ka mid ah dadka halganka ku jiray dad fara badan oo maanta jooga Yurub iyo Mareykan iyo Canada qaxooti ku ah oo diidanaa sistemyadii fara badneyd ee Ethiopia ka soo taliyay. waxaad ogtihiin dadka gobolka ku nool in la barakiciyay oo qaar fara badan hanjabaad lagu barakicin jiray oo 60kii, 64kii, 72kii iyo wixii ka dambeeyaba 77kii dagaallo aanan loogu naxariisan la geliyay. dadkan la xasuuqi jiray meel ay ku qoran tahay ma jirto. xasuuqyadaasi waa xasuuqyo taariikhi ah. ummadan sida loo xasuuqay ummad loo xasuuqay ma jirto. laakiin waxaan leenahay laba jiro oo u baahan inaan cilaaj u helo dawo. jirada koobaad waxa weeye maradka koobaad ama cudurka koobaad waa madax meedka horaan wax u ilownaa fuqdaanu daakira. marka arintaas waa muhiim. arinta labaad waxa weeye arinta ku saabsan aan leenahay العجب والقرور intaan iska helaanaku inaan la buudan leenahay catifo inaan hore wax u xaqiijino ayaan leenahay. marka labada jiraba waa ina dhibaysa haddaan nahay dad Soomaaliya. waxay inaga haleynaysaa buusolka meesha aan ku soconno iyo ujeedada inaga weecinaysaa inagana luuminaysaa. waxa weeye dadka Soomaalida ee ku nool gobolkan la yiraahdo Soomaali galbeed ama Ogaadeniya ama gobolka Shabeelle la yiraahdo dad cidlo degan ma jasiirad ma degan. dadkani waxay leeyihiin walaalo kale oo degan Djibouti, oo degan Somaliland, oo degan Soomaaliya koonfurta, oo degan bariga Soomaaliya, oo degan Kenya. waxay leeyihiin dad walaalahooda oo imtidaadaad bay leeyihiin ay maaragtay way fidmayaan juduur bay leeyihiin xididay leeyihiin. dadkani walaalay leeyihiin dad cidlo laga heli karayo maaha. marka waa inay gartaan inaad tihiin sidaa. markaad garataan waxa weeye qofka Soomaaliga ee dagaalka intaa leeg soo galay maanta Ethiopia ka mid ah maxaa horyaala weeyaan. waxa weeye waxaan ognahay walaalayaal isbedelkii dhacay wuxuu keenay 3 arrimood. Ethiopia isbedel baa ka dhacay Abiy Ahmed buu keenay. laakiin Abiy Ahmed wuxuu ka mid ahaa systemku ka mid ahaa. waa inaan garanno Abiy Ahmed wuxuu ka mid ahaa doctorku systemku ka soo dhex baxay. Ethiopia gobolka Ogaadeen gobolka maxaan ku dhahdaa in Oromada ninka madaxweynaha ka ana wuxuu ka soo baxay gobolka meel kale ka biiban. wuxuu ka soo baxay dawladda Ethiopia ka soo dhex baxay nidaamkii hore ee systemku ku jiray kana systemkii uu ku jiray. laakiin isbedelka Soomaalida ka dhacay wuxuu keenay 2 nin oo madaxa oo midna systemkii ku jiray oo wasiirka maaliyadda midna uu dibadda ka yimiday oo la socday kacaanka uu la socday iyo dulmidiidka. marka waa Mustafa. arintan waxay leedahay qiraa'o u baahan tahay lecture inaan akhrino. muxuu ka dhigan yahay in Ethiopia dadka isbedelka keena ay yihiin dad systemkii ka mid ahaa. Soomaalidana dadka isbedelka keena ay yihiin dad systemkii ka baxsan madaxna ay ka noqdeen sida Mustafa kale. arintaas waa muhiim inaan isha ku hayno. wasiirka Ahmed ee arrimaha maaliyadda systemku ka mid ahaa dawladdan cusubna uu la socdaa. ninkana systemka ayuu ka horjeeday dawladda cusubna uu la socdaa. labadoodiina waxay kala noqdeen midna madaxweynihii gobolku noqday midna wuxuu noqday madaxweynihii xisbiga. arintaas waxay ahayd in la sii abuurayay xididada loo sii sameynayay inuu khilaaf dhici doono hadhow toole. arintaas isha inaan ku hayno waa laga maarmaan. arinta labaad waxa weeye ninkan Mustafa la yiraahdo ee isbedelka
markuu dhacay kadib yimiday waa nin rumaysan laba arrimood oo u ah lafdhabar siyaasaddiisa. waa midda koowaad waa nin Soomaaliya. Soomaalinimadu waxay ka tahay mabda uuna ku dhaarsan yahay. arrinta labaad ee uu ninkan rumaysan yahay waxa weeye in cadaalad wax lagu qaybtamo iyo xorriyad oo dimuqraadiyad la sameeyo oo aanan addoomo la noqon oo dhul Soomaaliya aan la qaadan wax Soomaalida aan la qaadan. labada arrimood buu yahay nin aaminsan Mustafa. waa nin gacantiisuna nadiif tahay, maskaxdiisuna nadiif tahay, taariikhdiisuna nadiif tahay, ujeedadiisuna ay nadiif tahay weeyaan. arrintaas waa muhiim iyadana ma inaan isha ku hayno. arrin saddexaad baa jirta. arrinta saddexaadii waxa weeye Soomaalida Ethiopia amba Soomaalida gobolka shanaadi waa dad loo yaqaanay historic ahaan taariikh ahaan dad aan Ethiopia ka mid ahayn. Ethiopiaanku ma rumaysno Soomaalidu inay Ethiopian yihiin. Soomaaliduna ma rumaysno inay Ethiopian yihiin. marka maxay u baahan tahay arrintaas iyaduna waa inaan isha ku hayno. saddexda arrimood annagoo isha ku hayna ayaan rabaa inaan soo tabiyo arrin analysis ah, taxliil ah iyo arrin tala ah. arrinta analysiska ee taxliilkii waxa weeye maanta waxaan nool lahay walaalayaal adduunka dhan marka lagu sameeyo taxliil caalamka oo dhan maaha geeska Afrika oo quraate. haddii bariga dhexe la dhahdo, Yurub haddii la dhahdo, America haddii la dhahdo, waxaa ka socota waxa la dhahdo tawrad international revolution, isbedel caalamiya socda. Faransiiska waad ogtihiin isbedel baa ka socda. Macron laga horjeedo oo lahaad leh oo kala go-ayn. statistic la sameeyey daraatoole 65% dadka Faransiisku waxay rumaysan yihiin waxa ay rumaysan yihiin dadka mudaaharadada sameynaya. dadku waxay ka daaleen sistemyadan beenta ah ee kala socon. maanta Venezuela waxaa ka dhacay waad ogtihiin in la eriyay madaxweynihii hore madaxweyne kale oo ismagacaabay oo buuqii uu xoog u socdo. Venezuela wadanka culus ee qaaradda America ku yaala. waxaad ogtihiin adduunka dhan waxaa ka socda inuu isku mashquulshan yahay Mareykankii naftiisii Trump iyo Mareykanka inuu isku mashquulshan yahay. wadanadan bariga dhexe waxaa ka socda waad ogtihiin shirka Warsa ka dhici doona. wuxuu yidhi Ruushku ma imanayo maxaa yeelay maaha shir xaqiiqi ah, waa shir hawaawiya buu yidhi. marka Mareykan iyo Ruushna way isku soo baxeen. dagaalkii qaboobaa lagu laamayaa. China uu soo ambabaxay si uu noqdo quwad caalamiya oo Mareykanka riixaysa. reer galbeedka Mareykan, Shiina iyo wadanada Yurubtu way isku haleeli doonaan qaaradeena Afrika, gaar ahaan bariga Afrika geeskeena. adduunka waxaa ka socda buuq iyo xiin aad u culus. analysku markaa wuxuu ina leeyahay waxaa dhici karaya Ethiopia amba geeska Afrika 4 arrimood inay ka dhacaan 10 sano ee soo socota. marka arrinta la rogrogo ee dhan walba laga joogsado. buugaan fara badan baa qoraya. jaraa'idka waaweyn ee ka soo baxa macaahidda sida maaragtay macaahidda Edward iyo maxaan ku dhahdaa Dale Carnegie iyo kuwaas oo dhan waxay baarayaan inuu geeska Afrika sida uu maanta yahay uunan ahaan doonin 10 sano ee soo socota. siduu noqon karaa geeska Afrika? waxaa ka soo bixi kara geeska Afrika 4 arrimood, laakiin ama waxay nii sheegi doonaa 3 arrimood. arrinta koowaad waxa weeye geeska Afrika waxaa laga yaabaa inuu xaalad dib u dhac aad u culus uu ku dhaco. gaajo ayaa la filayaa inay dhacdo. abaaro ayaa la filayaa inay dhacaan. dagaallo sokeeye inay dhacaan baa la filayaa. waxaasoo dhan inay keenaan gaajo aad u culus oo bariga Afrika ka dhacda oo dadku waxay cunaan ay waayaan. arrintaas bilowgeygii waa la arkayaa. Djibouti waxay gashay dhaqaale xun. taqashuf buu bilaabi doonaa baa laleeyahay Ismaaciil Cumar Geele inuu sheego kuntigeejis siyaasad la dhacdo siyaasada soo socota amba usbuuca kale ku xiga. arrintaas waxaa keenaya baa laleeyahay wadankii oo 10% ay gaadhay maaragtay amaahdii lagu lahaa. in Somaliland cabsi weyn baa ka jirta, gaar ahaan imika doorashooyinka soo socda. Ethiopia waxaa ka jira cabsi aad u culus. marka waxaas oo dhani waxaa la filayaa sinooroyaadka inay majaacaad ay dhacaan. arrin labaad baa jirta oo geeska Afrika laga cabsoonayo. tafakuk waxa dhacda inay dowladuhu qaybtamaan.
dowladaha qaybtan baa sii qaybtamaya almuqasamu yuqasam walmujazau yujazac wax markii horeba qaybtama baa la qaybinaya waad ogtihiin dadku inay jecel yihiin maanta inay reero sheegtaan marka reeraha inay dowlada samaystaan baa laga yaabaa etoobiyana inay googo'do waa arrin siinorayaadka waaweyn ee yaalla weeyaan etoobiya waxa awal usoo gurman jiray maraykanna isagii baa talahaya yurub baa usoo gurmanaysa yurubna ka tahaysa mid walba mushkilada daaradiisa taala yaa mashquulisay marka waa in la ogaado in dhibaatada la isku diyaariyo beritole oo maanta la dhaafa ishu waa analyskii waxaan wado arrinta saddexaad ee dhici karaysa waxa weeye in ay dowladahan imika wadanka qabsaday diraasay wadaan in la afgembiyaba inay ciidamadu Ethiopia qabsadaan dowlad adag oo dibaddana ku xidhan inay imato oo waxa la aaminsan yahay dadka Ethiopia waa sida carabta xoog baa lagu xukumaa marka inuu xoogii soo laabmo oo ciidamadu iyagoo fasax ka haysta wadano kale ay xoog ku qabsadaan waa si noroyaad dhici karaya maadaama waxaas oo dhan uu hor yaallo waxa weeye dadka Soomaalida ah waxay u kala baxayaan saddex qolo ikhwaani fillah waxay u kala baxayaan Soomaalidu dad la yiraahdo aqoonyahan iyo dad la yiraahdo siyaasiyiin iyo madax iyo dad la yiraahdo dadka caadiga ah rajul shaaric bini aadamka noorka caadiga ninka aqoonyahanka aqoonyahan siyaasadeed aqoonyahan fikri aqoonyahan dhaqaale aqoonyahan diineed waa labeentii waa inuu keeno sidee habkee halkee markee iyo maxay baa yeelaa waa inuu su'aalaha ka jawaabo inuu maaragtay hadlo uun maaha waa inaan dadka u sheegno halkee na looga soo dusayaa halkeen ka bixi karnaa maxaa yeelaa maanta iyo beritoole sideen yeelaa oo maxaa inoo hor yuuraraa oo ah caqabaad iyo dhibaatooyin maxaan kaga bixi karnaa caqabaadka iyo dhibaatooyinka su'aalaha inaan isweydiino oo ninka aqoonyahankii uu soo bandhigo marka anaku haddaan nahay culimmadii iyo aqoonyahankii waa inaan u fikirno sida ay dadku u fikirayaan si ka duwan lianna waxaa la dhahdaa التفكير العادي يؤدي إلى حلول عادية si natural haddaad u fikirtid oo caadi ah waxaad soo bandhigi solution caadi ah laakiin haddaad u fikirtid si dadku ayna u fikirayn waxaad keeni solution dadku ayna ka fikirayn marka aniga waxa ila tahay inaan iska dayno solutionadan caadiga ah sidii wax caadi maaha marxaladan ku jirno waa marxalad qeyr caadi ah waxaan ku jirno marka arintaas waa arinta looga fadhiyo aqoonyahanku jaamacadaha intay galaan inay soo fikiraan madaxa soo xafuujiyaan ay kadibna mashaariic soo bandhigaan siyaasiyiinta u keenaan ninka siyaasiga waxaa laga doonaya waxa weeye inuu maaha dadka dagaal geliyo ninka siyaasigu waa inuu keeno sidee loo badbaadaa halkee laga baxaa marxaladan marxaladii dagaalka mise waa tii nabadda haddana uu dadka ku hogaamiyo sidii loo bixi lahaa waa inuu ninka siyaasigii waa inuu noqdo qof waxa ay soo bandhigaan aqoonyahanku ka faa'iideysta akhriyana waaqica waxaa la dhahdaa siyaasiga faashilkii waa ninka duldhiga miiska wuxuunan miisku qaadi karin miisku markaa uu jabi siyaasiga naajixiina waxa weeye waa ninka miiska saara inta uu miisku xambaari karo macnaha waxay ka dhigan tahay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa bini aadamku waxayna qaadi karayn lama qaadsiiyo dagaallo ayna geli karinna lama gasho nabigeenna sal slam dagaalkii mu'ta markuu u diray saxaabada ee 3 nin oo saxaabadii oo Jacfar iyo Cabdulaahi oo ka yihiin la soo laayay wuxuu nabigu islaam yiri waxa qaaday seeftii imika uu daawanay nabigu waxyiga ilaahay baa tusayay waxa qaaday buu dagaalkii imika Khalid markaa muxuu sameeyay wuxuu eegay ciidanka hor jooga iyo meesha uu joogo inay tahay xuduudii Roomaga caasimadda islaamka ee Madiina uu ka soo duka in badan dagaalka hadduu sii wadana inta yar laga takhalusi doono haddii ciidanka laga takhalusana muslimiintu waxay noqon doonaan bilaa dhabarka jabaya wuxuu markaa bilaabay siyaasatul kar inuu dib u soo cesho ciidankii isagoo iska dhigaya inuu weerar qaadayo gaaladii weerar ka cabsanaysa ayuu ciidankii soo ceshay Madiina ku soo ceshay markay Madiina yimaadeen saxaabadii ubadkoodii waxay dhaadeen ayuhal furaar fulooyinkii soo baxsaday markaa uu nabigu yiri laysu furaaran wa inma hum qurrar waa rag dhabar jabi sameyn doono
dib bay u laami doonaan. waa hab dagaal, waa siyaasad, waa khibrad, waa maskax. safety ilaahay baa sidaas samaystay. marka alxarbu khudca, rasuulku wuxuu yihi dagaalku waa siyaasad weeye. dagaalku maaha uun hadal maalayacni ah. dagaalku maaha rasaas laca oo quraatee. dagaalku waa halkan. dagaalku waa khibrad. dagaalku waa fikir. dagaalku waa soo jeed. dagaalku waa isweydiin. dagaalku waxaas buu baahan marka siyaasiga ah. saasaan u baahannahay. qolada saddexaad waa dadka shicibka ah. shicibkeenna waa shicibku marka analysis ku sameyna shicibkeenna Soomaalidu wuxuu u baahan yahay inaan ayna noqon dad hor socda siyaasiyiinta, ay noqdaan dad siyaasiyiinta la socda. siyaasiyiintu waa labo. siyaasi dowladda iminka jirta la socda, dad ba aaminsan daba soco. siyaasi mucaaradka iyaa jira, dad ba aaminsan adiguna ninkaa daba soco. laakiin adigu ha rasminin siyaasadda nin caadi ah tahay. maqaaxi baad shidataa, cuntaad cuntaa, xaas baad u shaqaysaa. ma tihid nin ka maaragtay fataala siyaasadda. waxaa tahay nin noloshiisa wata. marka nolosha dadka wada waxaa lagaa rabaa inaad gargaartid ama diidid ama aad ogolaatid baa lagaa rabaa. marka ani waxay ila tahay markan analyska aan eegno Soomaalidu maanta Ethiopia waxaanu ku naalnaa meel istaraatiijik ah. ciyaar maaha meeshaad fadhidid. waxaad og tahay ishaaca oo dariiqa la yar xidhay iyo dariiqa kale cundhufo oo xidhmay. magaaladii Addis Ababa maaragtay waxaa ku dhacday gaastashiinadii baa xidhmay. yacni waxaa la waayey wixii gaas la oranay baa la waayey. halis baa la galay. waxaad ogtihiin geeska Afrika dhibaatada ugu weyn ee taalla waxa weeyaan waxaan dowlado maaha, waa kartoonno weeyaan. Afrika wadanada la amaano waxaa ka mid ah wadankan Botswana dhacdo. Botswana waa wadan xataa haysta 18 bilood 20 bilood in ka badan raashinku cuni lahaa. 19 bilood 20 bilood wax ku dhow. laakiin wadanadeenu ma haystaan. haddii uu wadanka dhibaata ku dhacdo 15 cisho wixii la cuni lahaa kayd ma yaalo. marka waxaa la rabaa in aan meeshan aan naallo waa meel muhiima, waa meel Ethiopiaanku ay ka fikirayaan. maadaama ay sidaa tahay meeshani, sideen u tafciilinaa, sideen uga faa'iidaysanaa meeshan aan degannahay muhiim bay tahay. marka annaka siyaasaddu waxay u baahan tahay inaan 3 arrimood la qaado tallaabada soo socota. waxaan la hadlayaa dadka Soomaalida. siyaasadda koowaad ee u baahannahay waxa weeye inaan garab joogsanno Mustafa weeyaan. garab jooggaas aan garab joogsanayno waa inuu noqdo mid bilaaxada weeyaan. maxaa yeelay Mustafa bismillah afwan Mustafa maanta wuxuu matalayaa sharciyadu matalayaa. dad baa doorasho ku yimid, ummad baa daba socota. marka in la difaaco weeyaan. 2 waxaan u difaacaynaa uu ina matalayaa waxaan Soomaalidu doonaysay buu sidaa. 3 waa nin aqoon leh. 4 nin ka shaqaysanaya maaha siyaasadda, waa nin u shaqaynaya dadka. marka in la garab joogsado muhiim weeyaan arrintaas daraadeed. marka ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Shanaad degan, Soomaali galbeed degan, gobolka Ugaadina degan, isgarab taaga walaalkiin Mustafa oo iyo madaxweyne ku-xigeenka labadaba isgarab taaga oo garab joogsada. waa arrintaas waxaan la hadlayo waa shacbigaas oo ugaasyadoodii, salaadiintoodii, boqoradoodii ay daba joogaan weeyaan. arrinta labaad waxa weeye Mustafa aan doonaya inaan la hadlo. Mustafa waxaan jecelahay maadaama uu yahay nin aqoon-yahana inaan 2 arrimood aan u sheego. arrinta koobaad waxa weeye waa nin ka soo shaqeeyay hay'adaha caalamiga ah. waana nin technocrat ah. ragga hay'adaha caalamiga shaqeeya ee technocratka ah laba arrimood baa dhibaata ay ka haysataa marka qaarkood. waa inuu iska ilaaliyo. siyaasaddu waa muhiim. inuu noqdo nin siyaasi ah loo baahan yahay. waxaa jira kuwa kula jooga oo kula joogin. waxaa jira kuwa ku qoslaya oo ku goynaya mijaha inaad aad ula socotid. dadkani ma yaqaanaan kala dambeynta. waxay yaqaanaan in aad ahaatid sidii Cumar uu yidhi anu ma yihid shaydaan dadka dhaca, laakiin ninka shaydaankii ma dhici karayo. waa soo jeed. ilaahayna wuxuu yidhi khuduu xidrakum, digtoonaantiina qaata. marka Mustafa waxaan ku weynayaa inuu noqdo technocratka
iyo hay-adaha caalamiga kasoo shaqeeya inuu ku darsado khibradda siyaasadda. siyaasaddu waa muhiim, siyaasadda weliba dadkeenna waa muhiim jiddan inaa aada ula socotid arrintaas. arrin labaad baan kula talin lahaa inuu ka dhowrsanaado intuu karayo degdega. waxyaalo badan oo degdegaa jira oo la rabo in lagu geliyo kadibna lagu dhado ninkani meelo kaleu ku xidhan yaho waxbuu rabaaba oo maaragtay soomaali weyn buu rabaa, balaayuu rabaa. waqtiga marxaladda waxaa loo baahnayn in lagu geliyo, iyadana aada uga digtoono. marxaladda la soco yaan oran lahaa. taasi waa digtoonaantii. arrinta kale oo laba arrimood baan Mustafa kula dardaarmi lahaa. waxaan kula dardaarmi lahaa in uu ku dhex milmo mujtamaciisa, bulshada Soomaalida inuu ku dhex milmo, in lagaa soo dhex saari kari waayo, in aad noqon quraan gooni loo qabto, inaad noqotid nin dhex fadhiya Soomaali oo dhan meel kastay joogaan, xuduudeed oo dhan, meesha ugu shaqeysa ilaa meesha ugu sokaysa. marka inaad joogtid waa muhiim weeyaan, inay ummadaadu ku sheegato, ku tabanido. taasi waa arrin istaraatiijikaal muhiim ah. arrinta kale ee muhiimka ah waxa weeye inaad dadka Soomaalida ah ka xulatid caqliga iyo maskaxda iyo dareenka dadka leh. dadka caqliga leh iyo maanka leh xulo ee dareenna leh. dad baa jira caqli badan laakiin caqligooga shaydaanka ugu shaqeeya, laakiin dareenka dadka le ku darso. dadkaas ha kuu noqdaan dadka aad la shaqaynaysid ee la tashanaysid. marka arrintaasina waa muhiim walaalkay Mustafa. taasaan ku waanin lahaa. waxaan kaloo oon ku waanin lahaa in isaga iyo dowladda dhexe aan loo dhaxayn. adiga ayaa matala gobolka, adaa madaxweyne ka ah. dowladda dhexana iyada adigaa u taga oo ummaddan u matala. qof kaloo u matalaya ma jiro. waa ina adig kuu soo marto, adiguna waa inaad iyaga u martid. wixii ummaddan ka maqan adaa uga doonaya, waxay dowladda dhexe ka doonaysa ummaddanna adaa ka soo qaadaya. adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaaga iyo kuwa kale ee dowladda kula shaqeeya. wax kale ma jiraan. xisbigu waa xisbi siyaasadeed, laakiin dowladdu waa adiga weeyaan. marka xukuumaddu waa adiga weeyaan. marka taasina waa muhiim in la garto. taaladaana waxaan siin lahaa isaga. talada waxaan usoo jeedinaya qolooyinka la shaqeeya adowla alcamiiqa, dowladda qarsoon ee Tigreegii iyo iyagadi cabdi iilay saaxiibadii la shaqeeya, dib u curasho kuwa ku shaqeynaya. waar dib u curasho way dhacday. taariikhdu dib uma noqoto, taariikhdu hore u socotaa. waxa weeye haddaad doonaysiin inay ummadda Soomaalidu inisaamaxdo, xabsigii dadka aad ku aasayseen markii la arkay, hogga dadka aad ku ridayseen, culummada aad ku ridayseen, ininkoo iimaan iyo damiir lahayn saa dadka u galayseen, hablaha aad maaragtay kubsanayseen marka la arkay, inaad dib u soo noqotaan ceeb bay tahay. laakiin waxaa la rabaa inaad laba shay garataan. toobadoo albaabkeegu uu furan yahay. ilaahina u toobad keena, ummadiinana u toobad keena. markaana waxaad tidhahdaan annagoo toobad keennay, toobadda se loo keena waa sidii Nelson Mandela uu sameeyey. waa inay ummaddu inisaamaxdo. maaha inaa ininku isa saamaxdaan. maaha inaad tirahdid anaa bis waa toobad keena, ilaahay baan la hadlay. waxaad baabi'isad xadeed dishay wax dowlad iyo bad leedahay. marka waa in ummaddu ku saamaxdo. kadib waa in ummaddu kuu talisay tirahdaa sidaa baa lagaa yeelay. sida lagaa yeelaya marka lagaa yeelana waa in lagaa yeelo. taasina waxay u baahan tahay inay dadka Soomaalidu qolonimada ku xurubaan. nina inuu ninkiisa difaacin. ninkaagu hadduu ahaa nin dadka leynaya meedaanka keen, maxkamadda hala taago, cadaaladii halaga maro. marka dadkaa saasaan ku leeyahay. iskaga hadha dowladdan camiiqa ah. way dhacday, way socotay. ummadiina dhinac ka raaca. arrinta kale aan kula talinaya waxa weeye taariikhdu waxay tiraahdaa waxa weeyaan waa maalin aad garan weyday. arrintu waa arrin aad garan weyday iyo arrin aad gaari weyday weeye. arrinta maalintii hore aad garan weydeen ee maanta aad garateen, ha ka dhigina mid aad gaari weydaan ee garta oo gaadha. arrintaas waa muhiim jiddan weeyaan. marxaladdan waa marxaladii arrimo in la gaadha weeyaan. sidaas daraaddeed waxaan leeyahay dadka Soomaalida ee ku nool gobolka shanaad amba Ethiopia gobolka shanaad la yiraahdo, amba ku nool Soomaali galbeed, amba ku nool maxaan ku idhaahdaa in Ogaadeniya, maanta waxaan haysanaa laba fursadood baad haysataan historic ah. fursadda koowaad waxa weeye Ethiopian kale adkeyn baad joogtiin. taariikhda sidaad u geli lahaydeen ku dadaalaa. fursadda labaad waxa weeye Ethiopia oo meelay u socoto aan caddayn yaad nooshihiin.
ee garta halkeed ku socotaan. labada haddii la fahmi waayo waxaa la oran doonaa sidii 91 dhacday markii Meles uu ka qabsaday ee kadibna dib loo yaacay ee la waan qaldanay maantana in la yiraahdo waan qaldanay 20 sanaba generation baa baaba'ayo oo qaldamaya waa inaan ka korno arintaas weeyaan waa inaan maanta shalay aan ka faa'iideysano quraankana waxaa ku qoran ilaahay wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala fa'tabiru ya ulil absar dadka aragtida law wax qaata oo adduunka taariikhda socota ku qaata sunanka ilaahayna eega sida taariikhdu u socotana eega dadku waxa markay taariikhda akhrinayaan waa saddex qolo axadaasta akhriyaan dhacdooyinka akhriyaan qolna bini aadamka matalay akhriyaan qolna afkaarta akhriyaan maanta afkaarta socota akhriyaan dadka bini aadamka sheekadooda ah nagu yaraato hebel baasdan yiri abi baasdan yiri maxay jawhar baasdan yiri ka maxay gaarastan kale yiri maxay baasdan yiri ma nagu yaraato afkaar baa xakunta Ethiopia maanta ideolojiyada afkaarta caalamiga afkaarta maxalliga iqliimiga aan barano sideen afkaartan uga dhignaa waaqicna aan barano sideen baan dadkeena u badbaadinaa aan barano halkeen ku soconaana aan barano taas aan muhiima marka waxaan jeclahay kelmadaas inaan u soo jeediyo ummadayda halkaas ku nool ee walaalahaya maxaa yeelay waxaan aad u dareemayaa 10 sano soo socota inaan qarar qaadano inaan taariikhda ka baxno haddaan Soomaali nahay iyo inaan taariikhda dhex fadhino haddaan qarar ku qaadano inaan taariikhda ka bixin waa inaan isbedel ku sameeyno Soomaaliya haday tahay Soomaalida weyn haday tahay Somaliland iyo haday tahay Djibouti ba dadka ku nool waa inuu isbedel ku dhaco Ethiopia waa inuu isbedel nagu dhaco dadka ku nool iyo Kenya ba waa inaan afkaarteena bedelno haday taasi dhici weydo waxa weeyaan sida kala u dhaqaaqayna oo ah yaa laytana nuraddu ya inoo soo cisha si aan wax u qabsano ayaan ku dhaafteena ma soo noqoto marka taariikhdu waa asaas weeye ikhwani fillah wa naasantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh